السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن الداود يلسود وهذا ومركل إيه ولكن هذا كرامة هلك طبعا قد دعونا سنة وبرتن يوتيوب كل هذا كرامة هدي أي تايمر كوري سان صب وقتفضل سبسكرايب تنو شرف إسلام مركنا ريح كمال الكعس سيجوسو قران دعوين كا يم مقالة كالدوني حيسة لأن هلك سوق إنه هدي أدخري إنه رتشوكتي سوماها آديات بدو محسن تاي بقول كي بكون ماذا حاتين وصارن تاي كريه وحنكا عطينا إن آد مقالك لايك inoo sii saarto laygta ha kala masuugin muuqaalka aad iyo aad baad mahadsantihiin waxa ay islahayd qurux badnaysay dibnahaaga waxaana ay la soo baxday wixii ay filinaysay wax ka duwan iyadoo la soo baxday weji argagax leh gabadhan oo lagu magacaabo Isisi de Oliveira ayaa waxa maalmihii ugu dambeeyay ama muddooyinkii ugu dambeysay si aad baraha bulshada loogu faafinayay muuqaaladeeda Isisi de Oliveira oo ka timi magaalada Palmas ee waqooyiga waddanka Brazil ayaa u baxday si ay diminta u soo mudato ama u soo durato waxaana qalinkaasi markay ay gashay oo ay islahayd imika ay dibnaha ka sii qurux badnaanayaan sidii hore kala soo baxday weji argagax leh warbixintan ayaa waxa soo bandhigay telefishinka Al Arabiya Isisi de Oliveira waxa ka soo gaaray barar weyn hal saac kadib qalinka taasoo ay wadi weyday inay indhaheeda kala qaado waxaana la nooleed weji cabsi leh muddo 4 maalmood ilaa ay ka fikirtay in wejigeeda caadiga ah uusan dib ugu soo laaban doonin sidii uu ahaa hore ayay Soomaalidu ugu mahmaaday wax baso wax beel bay dhashaaye gabadhan sidii Alle u abuuray ku qurux badneed ismay lahayn sidan ayaad ku dambeyn doontaa gabadhan oo dhalatay waddanka Brazil ayaa si degdeg ah ugu soo noqotay isbitaalka si ay u hesho daaweyntii ku habooneed waxaana ay soo baxday iyada oo uga digaysa hablaha muuqaal ay soo duubtay khatarta qalliinka dibnaha uu leeyahay waxaana muuqaalkaasi faafiyay gabdho badan oo ujeedadoodu ahayd inay ka digaan qalliinka iyo sidoo kale kuwa kale oo ku maasanaya gabadhan islahayd qurux badnaysay dibnahaaga muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jira haween badan oo Soomaaliya oo isku dayay inay soo mudaan dibnahooda sida ay gabadhan kale oo samaysay kuwaas oo la kulmay khatarta ay gabadhan la kulantay oo kale adigu daawade ma la kulantay haween ay sidan kale oo ku dhacday walaalkii aadan karaama hadii ay tahay markii ugu horeysay soo boqoto fadlan subscribe ta hayra dhaafina ku sharaf hadii aad hore inoo joogtayna fadlan muuqaalka like saar si uu gaaro bulsho badan aad iyo aad baad mahadsantihiin tan iyo muuqaalka mid la mid ah nabadgelyo